kulan haboon dhammaantiin baddaawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub oo ku saabsan Switzerland. halkani waa Somali Freedom. dal baaxad ahaan ka yar gobolka Sanaag ee waqooyiga Soomaaliya, tirada dadkiisuna ay ka yiraahdeen tirada dadka ku nool caasimadda Ciraaq ee Baghdad oo lagu qiyaaso 7,665,000 haddana ah dal haysta dhaqaale, hanti, tiknoolajiyad iyo aqoonta ugu sarreysa dunida. Switzerland waa dal yar oo dhacaynta u dhaxaysa koonfurta, galbeedka iyo bartamaha qaaradda Yurub. baaxad ahaan waxa uu ku fadhiyaa 41,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. hal gobol oo Soomaali ah ayaa ka weyn wadankaas, waxaana ku nool 8 milyan oo qof. dalkaas sidaas u yar waxaa xusid mudan in uusan lahayn wax bad ah, sidoo kale intiisa badan ama kala bar waxaa ka badan dhulkiisa, sababtoo ah waa buuro iyo harooyin. buurahaas ayaa sababa in cimilo ahaan uu yahay mid qabow badan uu ka jiro. waa dal saameyntiisa bay-adeed ay aad u yar tahay, sidoo kale waa dal ay ku nool yihiin shucuub kala duwan. waxaa looga hadlaa luqado badan, 4 luqadood ayaa rasmi ah oo diiwaanka dowladda ku jira, waa Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka iyo Romaanshiga. waa dal federaal ah, confederation. 26 ismaamul ayuu ka kooban yahay oo mid walba uu leeyahay awood ka badan tan dowladda dhexe. ismaamul walba isaga ayaa maamusha howlihiisa. dalku ma laha madaxweyne hogaamiya dalka, balse gole ka kooban 7 xubnood ayaa dalka u ah hogaamiyaha wadanka, head of state. 7daas qof ayaa doorta madaxweynaha dalka, balse qofkaasi ma aha hogaamiyaha dalka oo ma laha awoodaas. xilkana waxa uu hayaa 1 sano oo qura. Switzerland maanta waa mid ka mid ah wadamada horumaray kuwooda ugu horeeya heerka horumarka aadanaha ee wadankaasi. waa kan booska labaad kaga jira guud ahaan dunida. waa dalka loo arko kan ugu amnisan oo falal dambiyeedku uu ku yar yahay. waa dal hormuud u ah ganacsiga iyo wax soo saarka dunida. waxyaabaha ay soo saaraan waxaa ka mid ah dawooyinka, qalabka la isku qurxiyo, noocyada saacadaha, shukulaatooyinka, agabka tiknoolajiyadda iyo agab kale. sidoo kale Switzerland waa kuwa caan ku ah horumarna ka gaaray nidaamka bangiyada dunida. dalxiiska ayaa ka mid ah isha dhaqaalaha wadanka. dakhliga soo gala qofka Switzerland waxaa lagu qiyaasaa, sida xogtu ay tilmaamayso, 80,000 in ka badan. waa mid ka mid ah dalalka ugu sarreeya dunida. caasimadda dalku waa Bern, halka magaalada u weyn ay tahay Zurich. ay iyada iyo inta ku xeeran ay ku nool yihiin ku dhowaad 2 milyan, waxaana ay hoy u tahay in ka badan 150,000 oo shirkadood. Switzerland waxay hoy u tahay qaybaha ugu waaweyn xarumaha qaramada midoobay iyo ururada kale ee caalamiga ah. waa mid ka mid ah dalal kale ganacsiga xorta ee dunida. waa dal dadka ku nool aysan dawarsan oo aan laga helin darbijiif iyo dawarsade. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in bangiyada ku yaal Switzerland ay ka badan yihiin dandiistayaasha goobaha ilkaha lagu daweeyo ee ku yaal wadanka. dalal badan, shirkado badan iyo shakhsiyaad badan ayaa wadankaas ku leh kayd hantiyadeed oo ballaaran. waa dalka soo saara saacadaha ugu badan uguna qaalisan dunida, ahna dalkii ugu horeeyay ee saacad aan biyuhu galin hindisa. sidoo kale shukulaatada ayuu caan ku yahay oo ay Switzerland soo saarta, waana dadka ugu badan ee cuna shukulaatada caalamka. kama mid ah midowga Yurub, se waa dal baahi kasta iyo xiriir kasta oo ay u baahnaayeen dhammaystirtay. wadankaas buuraleyda ah, haddii caalamka uu ka bilowdo dagaal la isku adeegsado nuclear, waxay diyaarsadeen meelo looga badbaado oo ay ka galaan oo qaada dadka ku nool guud ahaan dalkaas. waxbarashadooda iyo caafimaadkooda ayaa ah kuwo aad u sarreeya. baasaboorka dalkaas waa mid ka mid ah kuwa ugu xoogan dunida. magaalooyinka dabcan lagu magacaabo Zurich iyo Geneva ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu nolosha wanaagsan dunida. ragga Switzerland waa kuwa ugu cimriga dheer dunida celcelis ahaan, oo waxa ay gaaraan 81 sano. waa dad yar oo u istaagay dhulkooda xiran sidii ay u nimcaysan lahaayeen, kana dhabeeyay waxqabadkoodii. dhaqaalaha wadanka waa kan 19aad ee dunida ugu weyn. in ka badan 700 oo bilyan ayaa lagu qiyaasaa GDP-ga dalka Switzerland. dalka sidaas qaniga u ah, shuruuc ayaa isku haysa oo qolada kale ayay ka afkaara duwan tahay. ismaamul ayaa shakhsi iyaga ka dhashay looga arkaa halyeey, halka mid kale looga arka dambiile. sidaas oo ay tahay, nidaam iyo sharci aysan isku xadgudbayn ayaa isku haya dadkaas kale afka, dhaqanka iyo jinsiyadda duwan. madaxweynahoodu waxa uu sanadkii mushaar ahaan u qaataa lacag ka badan 440,000. sidaas oo ay tahayna ma aha mid awoodo badan leh. waad ku mahadsantihiin daawashadeenna. la wadaaga saaxiibada kale.